that is the end of the life gabadha Soomaaliyeed in istirtirto ninkeed mar walba ay isaga dhigto caruusad hadda iyo koow ah waa isku dhamaata habeenka la aroosa ugu dambaysa todobada ay ka baxdo xal idin ka rabaa marka waxyaabaha dadka qalbigooda soo jiita indhaha dadka maxaa soo jiita quruxda ninkaaga hada u hadiyaysid quruxdaada uma leen ma inuu meel kale ka fiirinayo soo qurxin ninkaaga nadaafadu waa qayb kamid ah nolosha النظافة نصف الإيمان نظافة maxay kamid tahay iimaanka barkiisa lagu dhahay fiiri nadaafada marka iimaanka barkiisa kamid noqoto guurkaagi wuxuu kaamilay diintaadi maxaa u guursatay marka hadaad isku qurxineen asaga waxa isku qurxinaa oo kaliya maalmihi xaflada ay jiraan aroos baa jira asalkaas fadhiya inta la soo martay baala barqaas wuxuu ku leeyahay xataa way barteen nimanka Soomaaliyeed maalinku ku arkado qurux badan wuxuu ku leeyahay maanta maxaa jira ma martaqaad baa jira soma والله العظيم ويكويدينيان ما أنت معاجر كلها ما ضد ناس صعدة that means أصلا بريارتك ما هذا سيمبا إسكو ما هذا قرحين بريارتك وحاسيسي وما ديك الله بنانك هذا بيا ويقفك على نوشة هذه ما سأقتها إني جيران قبل بدن أما ضمر بدن أو جانس أوعي إني بورسدان أما إله ما أموت لجلين أما شقية وقت بيكون مثل وقت جدي أما فاهم البروبلم بيجرت مجورسان كرتو أما ويحنو سنتها ما إله بقدرين عادي مركو إلهي جفت كوسي إلى جورستين أو إلهي كو قري إلى جورستين أو علف كاج وكو إماضي محاكو دي علف كاج قلبي دي سينا دكتور أو أسوجي دتين محا سلام الدقة سالي يعني قف أو وحبها هيسن نينك على مرور بأسكو قرحي نينك مركو إماضي محا سمعنا فإكزامبل رقم الصومالي ده وحاكم ده dad baa ku iimaanaya mar walba qolka ninkaaga ha ka duwanaada qolalka kale billahi alaykum see uga duwanaanaya anagu waxaan sameeynaa familkii oo kale waa weyn soma war xataa joodar yar meel haduu ka leeyahay oo aan la seexan karin yani nolosh moogta waxa laga bilaabaa mar walba meesha u hooseysa ha ka bilaabin dabaqyaha hadaan deganahay meesha u hooseysa hadii yani gurigaas dad isgeey aysan joogin oo meel la kala seexdo la waay oo asagii adiga halka joodar idin yaala joodarigiisas iyo go'isas iyo barkintiisas ha ka duwanaado joodariga dadka kale isticmaalaan qolkiisa markaad priority ninkaaga siisid gogashiisa markaad siisid priority muhiimadda markaa gogashiisa aad taagtid ninkaaga meel uu ku nasto hadhow markuu yimaado qalbigiisa dhan waa degaya daalka iyo dhibka uu soo marayna uu hilmaamaya laakiin markuu noo yimaado sariirti oo gabar kastoo asxaabtayda markay inta ama reerkayga gabdhihii la joogay maanta dhan ku korfadhiyeen oo anigu aan maanta dhan marna geeska uga baxay oo cunugi maanta dhan halka ka orday oo basaasada caana xagga geeska ay ka taala sariirta what kind of life is that nolosha ninkaaga uu yani markay helaya maxay tahay ma hilmaamaya daalka iyo dhibka uu soo maray ma hilmaamayo meesha intay uga laba ziyaado wuxuu leeyahay wallahi meesha nolol iyo mataalo una iska tagaya laakiin maxaa laga rabaa inaad priority siisid muhiimadda nadaafada gurigaaga adigi gogoshiisi awlaadi waa in guriga markuu ninka soo galo ku farxaa nolosha aad ku sugantihiin ma ahan inuu ka xanaaqo ama uu ka naxo markaas ninka uu soo xiisaya guriga imaashiisa tan labaad aan sameeyno waxay tahay waxaan sameeynaa mostly gabdhaha Soomaaliyeed iyo ragga Soomaaliyeedba dabeecadaha kale aan leenahay waxay tahay waan idin sheegay waxa isku guursanaa baan idin dhahay inaa awlaad kaliya iska helno laakiin iskuma guursano nolol inaa isasiino الله سبحانه وتعالى بحيث الله قرآن كيسا وإذا وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله فصاله 30 شهر الله سبحانه وتعالى وحو الله وضع الصنع حولين كاملين نويري waxay danta ugu jirtaa baan familka oo dhan ee ma aan in cunuga kaliya danta ugu jirto familka ninka sabeedan ugu jirta adiga sabeedan ugu jirta cunuga waaba garanna naas baa wax weyn ilaahay baa ugu tala galayba adiga waxay danku ugu jirtaa inaa nasatid markuu ilaahay 2 sano ku yiri kala weynaysi awlaadaada 2 sano ma aan sanad kasta inaad dhashid waayo hadaa sanad kasta dhashid waxa dhamaanaya muuqaalkaaga waxa dhamaanaya jirkaaga waxa dhamaanaya maskaxdaada caafimaadkaaga kulli waa soo gabagaboobaysaa waxaad isticmaalaysaa awood uu isan ilaahay kuugu talagalay inaad degdeg u isticmaashid dumarka qaar baa waxay ku leeyihiin haduu ilaahay awlaadana siiyo maxay uga hadlaysaa awlaad ilaahay waa baxsha alxamdulillah intu siiya allah u barakeeyo laakiin maxaa meesha taala awlaadan sanad kasta aad dhalaysid adiga dan ma ku taha aabadashid maxay sanad kasta hal sano gudahood markaan dhalo hal sano gudahood markaan dhalo I mean 5 sano gudahood markaan dhalo 5 cunug isku xigta oo aan neefsasho lahayn oo sanad kasta ninkaaga goorma time u helaysaa gormuusa time ku helaya ma isweydiiseen sanad uur baa leedahay sanadna walac baa tahay sanadna umul baa tahay dhowrka bilood u dhaxaysana period baa habeen kasta kugu dhaca
sooma marka dadka goormay nolol qaybsanayaan horta goorma isfahmayaan goorma nolosha romantic ah ninka karabta goorma ka helaysaa time ba hadaadan siinba ragga qaar baa waxay jecel yihiin sanad kasta inay dhasho intuu ka fakarayo inuu reer badiyo oo uu ka fakarayo inuu biri magac yeesho la dhaho wiilka reer hebel ah in hebel wuxuu dhalay 20 wiil waxa kaaga fiican hadduu ilaahay ku siiyo shantaas oo si fiican inta u korsatid moraal fiican aad ku soo saartid birina mustaqbalkooda ay ku noqon dad u aaya waayo maanta maxaan soo saarnaa 20 caruur oo 20 kuwa chokora yihiin 20 kuwa nolol aan haysan waxaad maanta waaqaca taagan fiiriya waxaan joognaa dalkan Kenya wadankeena Soomaaliya aan ka soo tagnay waxa arkaysaa cunug yar oo 3 sano jiro ama 2 sano jiro la ordaya maxaan ku dhihi jiray taayir bir gar hadaad markaa soo dag ku dakhrayaa caruurta ka 5 jirka agtooda lama mari jirin laakiin halkan wali ma aragtay cunug wadada ordaya wali ma aragteen cunug kasta iskuul buu galaa gurigiisa homeworkisa dadkii waxay isku fahmeen oo nolosha isku fahmeen awlaad inay helaan laakiin awlaadi ina iska dhashid maahan awlaadi ma awoodaan nolol fiican ina siisid ninkii markuu guriga soo galo uu arka buuqaan iyo maalin kasta baambar baa dhamaaday caanihii baa dhamaaday cunug hebel baa caaw qufac ku soo booday bari xagee ka aadaya gabar kasta ayadoo 7 dhashay waxa arkaysaa dhiig la'aan inta ku dhacday ku haysa ninkii baa naagayga daba guursay uma maleeynaysaa inuu noqonayo maxaa ka kulifay inuu saa ku noqdo yaa ku kalifay هذا كو كلفاي واي واحد يعني سميسي اولادنا نولل مسينس asagina time uma haysid wuu ardaya qolka kugu dhagan xataa meel fog ma aadayo guriga kugu dhagan gabadha yartoo joogto qolka kaliya u xiray buuq la'aanta ah baa lagaaga aadaya laakiin gabadhi buuqa badnayd oo 5 sano ah u dhalayso sanad kasta la dhaayna cunuga 2 bilood markuu gaaro ka shar naaska maxaa maanta lagu rabaa marka buuqa ugu batay maxaas adiga isu rabay weeyda markaas waxaan bilaabanaa hooyo kasta inay tiraado wallahi billaah ninka aan islaam meel yani biribu meel kaala soo baxaya meelna igala ma soo bixino sideeda aan oo dhalay halka ka dhaqaaqa abood alxamdulillah ilaahay awlaad waa baxsha laakiin ilaahay awlaad sida Soomaalida ay yani qaladka fikradda ay ka aamineen ma aha sida ilaahay uu tala galay ilaahay awlaad wuxuu ku ay kala weynaysi nolol si farxad si adii asagna nolol isku helay farxad waxaan kula talinayaa mar walba xawlayni kaamileen inaa ka dhabaysaan dumarka qaar baa waxay ku leeyihiin oo anigu naaskayga caano ma lahan 40 ku iiga go'a say cunuga xawlayni kaamileen inuu jaalo 2 sano kaamila adee kugu xiran tahay hadaa tahay hooyo mar walba jirkeeda iyo cuntadeeda ka fakaraysa tahay cunaysa cunno quality leh wuu helaya cunugaaga markaas caano ku filan hadaa tahay hooyo cunugeeda mar walba u nuujisa naaska sidoo ilaahay ugu talagalay maalinka waxa lagu talagalay 15 times 15 jeer cunugeena inaan nuujino laakiin maxaan sameeynaa marka u horeysa aan nuujino oo uu ooyo daasada farmasiga waxa uga soo qabanaa daasad caano ah see naaskaaga marka caano ku yeelanaya saabuusa adiga yani jirkaaga hormoonkaaga see uur isaga difaaci kartaa